إيجاد كوكيلة أو صوماليا قابلسن iyo Soomaaliland iyo ku xigeenkii qarabada midoobay ku xigeenkiisii iyo wafdi kale oo la socda ayaa wada socda waxa loo socdana de waad iska garanaysaa saxaafadiinu waxa weeye arrinkii tukaraq waanu wada hadalnay hadallo badan baan isdhaafsanay meel fiicanna waa noo marayaan afar qodob baan ku wada hadalnay waxa weeye in xabadda la joojiyo in xabadda la joojiyo in ciidamadu beesha jooga wada hadli karaan in maxaabiista la isdhaafsado haddii ay hor gasho wixii humanitarian in labada dhinacba ay ogolaadaan wixii hadal ee xuduudana aanu ka wada hadlno dawladda federaalka Soomaaliya waa salaamantiin dawladda Soomaaliland baanu nahay laakiin waxay noo waxay kuwii nala midka wasiiradii ka soo jeeday gobolada iyo odayaashoodii bay ku arkeen Puntland xaq baan u yeelanay marka inaan taasaa keentay inaan uga jawaabno dalka Sool iyo Sanaag inaan anagu mas'uuliyadeeda leenahay iyo buuhoodle annaga xukunna annaga ka soo jeedna dawladana way arkayaan madaxweynaha bari la balasay wasiirka khaarijka hadda u tagayaan xusbiyada labada xusbiyi way arkayaan civil society way arkayaan laakiin waxa inaga noogu soo horeeyay waxa weeye wuxuu marka laga tago waxa weeye wixii Puntland lagaga yiri annaga waa wax naqoseeya dad annaga wasiiro la mid ah wasiirada halka jooga waxay ku yiraahdeen bayna weydiinayeen marka ra'yiguna waa ra'yiga Soomaaliland qabto UN delegation coming to discuss resolution of conflict in Tukaraq based on 4 principles. Number 1, cessation of hostilities. Number 2, humanitarian access to the displaced person. Number 3, commencement of dialogue. Number 4, release of prisoners of war on both sides. I would like to ask you one question. I'm from Stati Mahmoud, and you are meeting special representative MP and Ministers Sol and Sanaag Guterres. And why you talk Why you talk? Why you talk the president of Somalia? We will be meeting with all shades of peoples and opinion in Somaliland, right from the parliament all the way to the presidency tomorrow, and also to the civil society, as well as also to the opposition parties.